بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan qiyaarta nala socota waa 17 Agosto sanadka 2025 barnaamijka caawa iyo barrow showna waxaan idinkugu hayaa qodobo aad iyo aad xasaasi ah waxa kamid ah dawladda Sacuudiga oo ku dhaqaaqday isbedel waaweyn oo lagu sameeyay hay'adaha kala duwan qaarkood ee wadanka kadib culays siyaasadeed oo daaqili ah oo la dareemay محمد بن سلمان ayaa lagu soo waramayaa inuu ka hortagay daad ballaaran oo ku soo socday taasoo iminka si weyn looga hadal hayo wadamada qaliijka iyo guud ahaanba wadanka Sacuudiga haddaba sidee wax u dhaceen dadka la bedelanaya kamid ah barnaamijka ayaan caawa ku faaqidi doonaa dhinaca kale qodobadaan idinkugu hayo waxa kamid ah Israa'iil iyo Masar ayay hadda xaaladdu ka taagan tahay meel culus kadib markii sargaal sare oo ka tirsanaa hay'adda sirdoonka wadanka Masar uu ku dhawaaqay in xilli hore ay gudaha u galeen gudaha nidaamka Israa'iil isla markaana dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan militarigooda iyo waliba dadaalada ay ku raad joogeen Israa'iil ay doonayso dhulka Falastiiniyiinta inay ku qabsadaan in si weyn loola socday hadda dhaqdhaqaaqyo ayaa ka taagan mixwar Philadelphia oo ah meesha ugu badan dooda uga adag ee Israa'iil iyo Masar ay ka taagan tahay warbixin ayaan idinkaga hayaa oo aan barnaamijka ku dul istaagi doonaa waxaan sidoo kale eegi doonaa madaxweynaha dawladda Lebanon Joseph Aoun ayaa markii ugu horeysay fariin adag oo u muuqanaysa hanjabaad u diray dalka Iran waxna uu ku yiri fariintaydu waa mid cad ujeedadu waxay tahay faraha kala baxa amniga gudaha ee wadankeena Lebanon taas oo ka dhigan xiisadda sii kordhaysa ee kooxda Xisballah iyo waliba dawladda Lebanon u dhaxaysa ee qorshe u yahay dhamaadka sanadkan in dawladda Beirut ay ku dhaqaaqdo guud ahaanba kooxda xisbiga in laga qaado hubka taas oo ay dawladda Iran hore u diiday dhawaana booqasho uu ku tagay wadankaasi Ali Larijani oo ah ninka amniga qaranka dalka Iran madaxda ka ah sidoo kalena kooxda uu hogaamiyo Naciim Qaasim ayaa ku dhawaaqday intani ay ka xigaan dagaal iyo waliba in faraha la iskula tago wasiirada kooxda taageersan ee xisbiyada Amal iyo Xisbullah ee Shiicadana waxa ay ka soo horjeesteen tallaabooyinka dawladdu ay ku dhaqaaqayso warbixin ayaan sidoo kale ku gorfayn doonaa inta barnaamijka aan wada joogno waxaan sidoo kale eegi doonaa khiyaarta ay nala socotay kooxda Ansarullah ee ka soo jeeda dalka Yemen laakiin loo yaqaan Xuutiga ayaa ku dhawaaqday inay gantaalo ku garaaceen meelo kala duwan oo kamid ah nidaamka Israa'iil tani waxaan uga jawaabaynaa ay leeyihiin dhibaatooyinka loo geysanayo shacabka Falastiiniyiinta xilli xaaladda gobolku ay faraha ka sii baxayso taliyaha ciidamada militariga ee Israa'iil Yaal Samirna waxa uu goordhow sheegay in ay diyaar u yihiin in la guda galo weerarkii lagu qaadi lahaa magaalada Gaza taasoo ujeedadu ay tahay in la fuliyo baaliri go'aankii dhawaan ka soo baxay golaha wasiirada ee Israa'iil qodobadaas ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka haddii uu rabbi saamaxo wahay Cabdicasiis Barrow si toos ah ayaad u daawanaysaa barnaamijka qubanaha caawa iyo Barrow show fadlan si aad macluumaad iyo warar kale oo dheeraad ah u hesho ku soo biira baraheena bulshada ee Facebook, YouTube iyo TikTok si aad u heshaan macluumaadkan aad baad u mahadsantiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar sida uu maanta baahiyay wargeyska loo yiraahdo Saudi Cassette oo inta badan lagu baahiyo xogaha dawladda Sacuudiga iyo isbedelada dawladdu ay ku dhaqaaqayso ayaa waxa la sheegay in guud ahaanba xilalka laga qaaday mas'uuliyiin sarsare oo dawladda si weyn ugu dhawaa arrimahan ayaa waxa ay daba socdaan waayidii ugu dambeysay culaysyo kala duwan oo siyaasi ah oo ka taagnaa gudaha qasriga Yamaama ee looga arrimiyo wadankaasi boqortooyada iyo waliba culaysyo adag uu dareemaya Maxamed bin Salmaan oo hadda ah hogaamiyaha wasiirada wadankaasi ahna dhaxal sugaha boqortooyada wadanka Saudi Arabia Maxamed bin Salmaan ayaa ku dhaqaaqay isbedelo uu ku sameeyay qaar kamid ah mas'uuliyiinta waxaana wararka la helaya ay tilmaamayaan tani in looga gol leeyahay in dawladdu ay ku joojiso culayska siyaasadeed ay sida weyn u wajahaysa maalmihii ugu dambeeyay dadka xilalka laga qaaday ilaa iyo hadda waxa kamid ah la taliyaha xogayaha guud ee golaha wasiirada Gassani al-Shaybi ninka la yiraahdo
iyo sidoo kale madaxa hay-adda militariga u qaabilsan dhinaca wax soo saarka ee warshadaha oo lagu magacaabo Maxamed Al-Hadi iyo mas'uuliyiin kale oo ka mid yahay baalayri ninka ku-xigeenka ah wasiirka difaaca ee wadanka boqortooyada Sacuudiga Dalaal bin Abdullaahi Al-Utaybi. raggan ayaa go'aankooda xilka looga xayuubiyay waxaa la sheegay in uu mas'uul ka yahay ama uu ku soo baxay amar boqortooyo sida laga soo xigta wargeyska Sacuudi Kaasad oo ah midka dawladdu ay in muddaaba soo saarto kuna baahiso fariimaha iyo waliba dekreetooyinka ka soo baxa dawladda qasriga Yamaama. Sacuudi Arabiya ayaa waxaa ka taliya qoyska reer Al Sacuud waxaana hadda ay dareemayaan culaysyo aad u ballaaran oo ka imaanaya dhinacyo kala duwan oo xoog leh. saacadihii la soo dhaafay xiisadaada culus ayaa lagu soo waramayaa inay qabsatay warbaahinta kala duwan ee Israa'iil iyo sidoo kale tan Carabta oo u dhaxaysa wadamada Masar iyo nidaamka Netanyahu uu hogaamiye ee Tel Aviv fadhiya. arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay markii militariga dawladda Masar sargaal sare oo ka tirsanaa hay-adda sirdoonka oo militariga ah ama garabka militariga u qaabilsan sahanka iyo sirdoonka Masar uu sheegay in waayidii ugu dambeysaba ay gunta hoose u fariisteen nidaamka Israa'iil isla markaana hay-adaha sirdoonku ay helayeen xogo dhammaystiran oo ku saabsan miisaska talada iyo waxyaabaha ay damacsan tahay nidaamkaasi. arrintan ayaa waxaa sidoo kale hore u sheegay madaxii hore ee hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad waxana uu yiri sida dawladda Masar ay u dhaqmayso iyo waliba tallaabooyinka ay qaadayso waxay u muuqanayaan inay tahay kuwa aan la iska indhatiri karin. xiisadan ayaa soo baxday xilli Netanyahu waayidii ugu dambeysay uu si aad ugu dadaalaya kor u qaadida arrimaha la xiriira suuqgeynta Israa'iisha weyn oo ah ajanda siyaasadeed iyo waliba mid looga qaadanayo wadamada Carabta oo saameyn doona ilaa iyo 8 dawladood. dawladaha sida weyn arrintan uga galgasha waxaa ka mid ah dawladda Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar. tallaabadaasina waxay ku tilmaantay inaan horey loo aqbali karin. xiisada cusub ee hadda ka dhaxaysa saraakiisha amniga ee labada dhinac ayaa muujinaysa inay ka sii darayso xaaladda iyo waliba iskaashiga hore uga dhaxeeya Israa'iil iyo dawladda Masar. horey toddobaadyadii la soo dhaafay wasiirka amuraha dibadda ee dalka Masar oo sidoo kalena ah diblomaasi rugcada Dr. Batri Abdelcaadi ayaa hore u sheegay in dawladda Qaahira ay qorsheynayso in ay ka baxdo heshiiskii 1979 ay la gashay Israa'iil haddii dhaqdhaqaaqyada militari ee ka taagan Sinaa iyo Philadelphia Israa'iiliyiintu ay sii wadaan. taasoo ujeedadu ahayd in la go'doomiyo magaalada Gaza isla markaana arrintaasi ay u aragtay Masar inay saameyn ku yeelanayso amnigeeda qaranka. arrinta dawladda Masar ay ka galgalatay ayaa la tilmaamay inay ku salaysan tahay heshiiska labada dhinac ay galeen oo mamnuucaya goobahaasi in ay ka caaganaadaan militariga. laakiin hadda waxay u muuqataa Netanyahu iyo dawladdiisu in ay ka dhaga adeegayaan tillaabooyinkii horey loogu heshiiyey. saacadee dawladda Masar ayaa hadda u muuqanaysa inay qaadayso tillaabooyin militari. bilowgii sanadkan waxaa jira maqaal uu daabacay sargaal sare oo dhinaca amniga ka tirsanaa ee dhinaca Israa'iil kaasi uu ku daawacay shabakada la yiraahdo Israel Hayom waxana uu qeexay in marka la fiiriyo Masar ciidamada sida aadka ay u dhoobaysay sanadihii ugu dambeeyay goobaha ay ka mid tahay Sinaa iyo xuduudaha Israa'iil ay wadaagaan ay ka dhigan tahay baaq dagaal oo ku saabsan in dhinacyadan aanay suri doonin. waxa uu xilligaasi sargaalkaasi tilmaamay in ciidamada Israa'iil ay ku dhacayaan burbur xoog leh halka Masarna ay qoranayso ciidamo carbisan oo tayo sare leh isla markaana ay soo gadanaysay qalab aad u ballaaran oo dhinaca militariga ah taasoo ka dhigan baa la yiri haddii labada dhinac ay sarkaan in Israa'iil ay wajihi karayso caqabad xoog leh. hasaatee General Sisi ayaa wajiyo labac ku socday waayidii ugu dambeysay laakiin hadda waxay u muuqataa xaaladdu in ay faraha ka sii baxayso. xogta labada dhinac ee dagaalka sirdoonka iyo warbaahinta ee u dhaxeeya Qaahira iyo Tel Aviv waxa uu hadda noqonayaa mid si weyn u sii xoogaysanayay saacadihii ugu dambeeyay. dhinaca kale taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga Israa'iil ee lagu magacaabo Eyal Samir ayaa qoraal uu maanta baahiyay waxa uu tilmaamay in la guda galay weerarkii ay Israa'iil ku qabsanayso guud ahaanba magaalada Gaza iyadoo ujeedadu ay tahay badbaadinta dadka la haystayaasha iyo hubka dhigista kooxaha
sida weyn uga soo horjeeda Israa'iil sida uu hadalka u tilmaamay. raadiyaha nidaamka Israa'iil ee Kan ayaa ku dhawaaqay in tillaabooyinkan ay noqonayaan kuwa sii xoogaysanaya maalmaha ugu dambeeya ee soo socda. weerarkii ugu horeeya ayaa lagu qaaday halka loo yaqaan Saytuun iyadoo sidoo kalena xerooyin dhinaca gargaarka laga sameeyay koonfurta. waxaa sidoo kale la arkay guryo la dumiyay iyo waliba duqeyn si baan u socota taasi oo dhinacyada kala duwan ee ka howlgalaya gudaha magaalada Gaza ay ku tilmaameen in ay tahay xaalad bini'aadanimo oo ka sii daraysa loona baahan yahay in arrintan si weyn looga hortago. waxa uu yiri Yaal Samir ciidamada oo si weyn u feejiganaya howlgalka qaaday waxaana ay fulinayaan amarkii ka soo baxay golaha wasiirada ee ahaa inay hirgeliyeen hindisii Netanyahu ee ku aadanaa magaaladaas in la qabto. kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta gaar ahaan Xamaas oo arrinta ka hadashay waxay ku tilmaameen tallaabooyinka Israa'iil kuwa gardarro cad oo aan la aqbali karin. si gaar ah waxay u soo qaadeen xarooyinka gargaarka oo laga dhisay koonfurta Gaza waxaana ay ku tilmaameen inay doonayaan halkaasi dadka markii la geeyo in laga tahriibiyo oo guud ahaanba deegaanadooda laga barakaciyo sida nidaamkaasi Xamaas ay ku doodeen. hase haatee Israa'iil waxay hadda sheegaysaa in ay howlgalkaasi bilowday ujeedaduna ay tahay hirgelinta guulo kama dambaysa oo ujeedadoodu ay tahay in si degdega loo hirgeliyo marka deegaanadaasi la qabsado. Israa'iil waxay tilaabadan qaadaysaa iyadoo wadamo kala duwan oo caalamka ah oo reer galbeedku ay ugu mudan yihiin ay si weyn uga soo horjeesteen howlgalkan. hase haatee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ilaa iyo hadda aan caddayn mowqifka ku aadan Netanyahu ee arrintan la xiriirta. dhinaca kale Yaal Samir ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dagaalkan kaliya aanu ku ekaan doonin Xamaas sidoo kalena uu saameyn doono xulafadooda gobolka bariga dhexe oo xitaa ay ka mid tahay Iiraan sida uu qeexay. dowladda Iiraan ayaa xalay hadal ka soo baxay taliska ciidamada sare ee ilaalada kacaanka qaranka waxay ku dhawaaqeen haddii la isku dayo in weerar lagu soo qaado in gobolka bariga dhexe ay guud ahaanba burburin doonaan. waxaana sidoo kale ay sheegeen in sida gaar ay u bartilmaamaysan doonaan danaha Mareykanka iyo waliba kuwa Israa'iil haddii dagaaladaasi ay sii xoogaystaan. tallaabooyinka Israa'iil ay ku dhaqaaqeen maanta iyo hanjabaadaha kala duwan ee hawada la isku marinayo ayaa mar kale walaac ku abuuraya xaaladda nabadgelyo ee gobolka bariga dhexe oo xaaladiisa ay horay u sii ahayd bariga dhexe laakiin hadda waxay u muuqataa in ay taagan tahay meel adag oo aan waxba laga qaban karin. waxaana la eegi doonaa xilliga ugu dambeeya ee tallaabooyinka iyo rasaasta u dhaxaysa labada dhinac waa Israa'iil iyo waliba Iiraan ay afka ka bixi karayso. isla wararkaasi haddii aan ku sii socdo maanta kooxda Xuutiga waddanka Yemen ayaa bilaabay weerar gantaalo loo adeegsaday diyaarado drone inay ku qaadaan gudaha nidaamka Israa'iil dhulka laga haysta Falastiiniyiinta. kooxdu waxay ku sheegeen tallaabadan inay tahay mid ay doonayaan inay uga argudaan shacabka dhibaatada diifta Sanbaaska iyo waliba duruufaha ay ku haystaan magaalada go'doonsan. waxaana ay tilmaameen in ay sii wadi doonaan hawshan ilaa iyo inta laga gaarayo xabad joojin iyo xal dhammaystiran oo nidaamka Israa'iil uu isaga baxaya dhulka Falastiiniyiinta. kooxdan ayaa waxay ka mid tahay kuwa Iiraan ay taageerada siiso laakiin hadda waxay u muuqataa inay qaadayaan tillaabooyin adag waxaana Israa'iil ay kala kulmeen duqeymo aad u xoogan sanadihii ugu dambeeyay. markii gantaalo ay hawada soo galeen ayaa lagu soo warramay in dhawaaqa ka diga gantaalaha ee Israa'iil uu dhawaaqay taasoo qasabtay dad fara badan in dhulka hoostiisa ay ku cararaan. in saacadaha ayaa wararku qeexayaan sidoo kale inuu hakad ku jira garoonka weyn ee Ben Gurion oo ka mid ah ilaha ugu mudan ee dhaqaalaha ay ka hesho Israa'iil. xiisad diblomaasiyadeed oo xoogan ayaa lagu soo warramayaa in ay hadda u dhaxayso dowladaha Lubnaan iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan kadib markii madaxweyne Joseph Aoun oo hogaamiya waddanka Lubnaan uu ku dhawaaqay in hubka dhigis lagu sameeyo ururka Xisballah oo si weyn gacan saar u leh dowladda Iiraan. hase haatee hadda fariin kale oo aad u culus ayuu maanta ka diray telefishinka Al Arabiya oo ra'iisul gaara uu bixiyay Joseph Aoun. waxa uu yiri fariintaydu waa mid cad ha faragelinina arrimaha gudaha ee dalkeena Lubnaan ayuu ku yiri dowladda Iiraan. diblomaasiyiin Mareykan oo wada qorshe cusub oo ku saabsan sidii hubka looga qaadi lahaa kooxaha dowladda aan ahayn ee ku sugan gudaha waddankaasi Lubnaan.
madaxweynaha dalka Lubnaan Joseph Aoun ayaa sheegay in fariin dawladdu ay u dirtay Iran ay tahay mid cad oo qayaxan waxana uu yiri joojiya oo ha faragelinina amniga gudaha iyo waliba siyaasadda qaran ee maxalliga ah ee dawladda Lubnaan waxa uu sheegay inuu si toos ah ugu gudbiyo fariintan Cali Larijani xogayaha golaha amniga qaranka ee dawladda Iran isagoo carabka ku adkeeyay in xiriirka labada dhinac ee ku salaysan ixtiraam iyo isdhaxgal aan ilaa iyo hadda laga dhigin mid aan shaqayn oo burbura dhinaca kale siyaasiyiinta Lubnaan waxa ay si dhow ula socdaan booqashada la filayo in ay ku yimaadaan magaalada Beirut Tom Prague oo wakiilka Mareykanka iyo Morgan Ortagus oo ah ku-xigeenka gaarka ah ee bariga dhexe ee Trump booqashadooda ayaa la rumaysan yahay in ay la socdaan fikrado cusub oo ku saabsan baa la yiri sidii hubka looga qaadi lahaa xisbiyada aan dawladda ahayn ee hubaysan ee ku sugan gudaha wadanka Lubnaan xaaladda siyaasadeed ee sii cakirmaysa iyo waliba hadalhaynta hubka dhigista Xisballah ayaa noqotay ajandaha ugu waaweyn ee hadda gobolka bariga dhexe ka taagan booqashadan ayaa waxa ay ku salaysan tahay baa la yiri kuna soo beegmaysa xilli khilaafyo aad u ballaaran ay u dhaxayso dawladda Lubnaan ee Joseph Aoun iyo hogaamiye Naciim Qaasim oo ah hogaamiyaha guud ee xisbiga lagu magacaabo Xisballah ee ka dhisan gudaha wadanka Lubnaan dawladda oo fulinayso qorshaha reer galbeedka ayaa damacsan in dhamaadka sanadkan hubka iyo gantaalaha ay gacanta ku hayaan xisbigaasi guud ahaanba laga wareejiyo laakiin Naciim Qaasim ayaa ku dhawaaqay haddii ay isku dayaan Joseph Aoun arrintaasi in wadanka Lubnaan mar kale uu lugaha u gali doono dagaal la sukeeye hadda waxa arrintan si weyn u biritaaraya marka la fiiriyo dawladda marka laga yimaado xisbiga dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ra'iisul wasaare Nawaaf Salaam ayaa wareysi uu siiyay wargeyska Sharqul Awsad waxa uu ku yiri shacabka Lubnaan xaq bay u leeyihiin inay ku noolaadaan nabad iyo xasilooni haddii aanay jirin buu yiri amni iyo xasilooni ma jirto fursad dib u dhis ah ma yimaadaan ama ay ku helaan buu yiri maalgashi weyn oo adduunka bangiga adduunka waxa uu qiyaasay in dib u dhiska Lubnaan ay u baahan tahay ku dhawaad 11 bilyan oo dollarka Mareykanka Israa'iil wali waxay weerar ku haysaa gudaha wadanka Lubnaan inkasta oo heshiis xabad joojina la gaaray Israa'iil waxa ay sii wadaa weeraro ka dhana meelo kala duwan oo Lubnaan ah iyadoo sheegaysa inay beegsanayso xarumo kayd iyo hub ah uu leeyahay xisbiga waxayna hanjabaad u dirtay baaliyada Xisballah oo hubka dhigistan la xiriira dagaalada ayaa waxay u muuqdaan inay aad u sii xoogaysanayaan marka la fiiriyo gudaha wadanka Lubnaan akhyaarta ay nala socoto ay tabinta qaybtana intaas ayaan ku gabagabaynayaa waxaan ahay Cabdicasiis Barrow waxaana daawanayseen qaybta koowaad ee caawa iyo qubanaha Barrow Show si aad macluumaad iyo warar kale oo dheeraad ah u heshaan ku soo biira baraheena bulshada idinkoo subscribe saaraya YouTube-ka follow oranaya bogoggeena Facebook iyo TikTok aad baad u mahadsantiin dhammaantiinba